السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشي تقييمها هي قدرنت المدن مر والبا ايدين تهي ميل والبا aad joogtaan soo dhawaada kuna soo dhawaada hod mashaayil barnaamijka weydii marti qiimaheeda mugeeyadii miisaankeeda leh ayaa halkan ii fadhiya waa walaalkii Shucayb Yare abwaan daayar ee khaasatan aniga aad aan u taageero bulsho badan oo Soomaaliyeedna ay aad u jecel yihiin Shucayb waa oksad weeriya farxad bay halkan ku kulano aad baa baasatahay aad baan ugu dhawahay hodman show sasa lagu luqeynaya Soomaa laxanka nifanaano aan jacay sidii soo galisay waka soo marka soo daay aad ya Shucayb waxaan ku aqaana Shucayb Yare bal magacaaga saddexan magacayga saddexan waa Shucayb Cabdiraxmaan Maxamed Wacays Daraad Taage Koohi Gabal ya ما شاء الله سوى استحمل وكل تاريخ نورولاتك حكاوت كدلته تاريخ نورولاتك دورته تاريخ نورولاتك دم مدحوينياشي السياسيينta iyo jabhadaha iyo mujaahidiinta iyo waxa tariikh nololeed weydiiya ma garanaysa laakiin tariikh nololeedkayga oo kooban aniga waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa taariikhdan dhashay ma sheegayo markaas anaaba ka yeelay alxamdulillah xagaas ka soo karay xagaas ka soo barbaaray ma sha Allah waa tahay gabayadaada cajiibka ah iyo hal abuurka bartan kaga jirtid goorma ayaad ogaatay inaad curin kartid waraay hodma show curintu wax wiliga yaalahay baa aan jeclaabay ahayd ilaa yaraantaydii oo markaan ulada ama KG-ga iskuulka fadhinay xiisada macalinku maqay iyo waxa ana gali jiro looma baahan jirin marka waxaan aad u xafidi jiray in boon xiisada oo jiray suugaantiisa ilaa ka qooqo maxaad ku qooqday adoon quraacan kadeena haynina habla qoreeshad qoraansigoodu qalad buu marka waqtigii aan dugsiga dhexe ku jiray baan soo bilaabay laakiin waqtigan si rasmi ah saaxada ama social media soo galay 2017 markaas waa tahay marka godadka wax ka curisay waa kuwa wallahi horta godadka maaso oo dhan waa ka curiyay jacbur waa sameeyay maasa caadi oo jifta waa sameeyay gabay waa sameeyay jiraa waa noqday wax waa jiray marka dhan walba bal hal gabay oo jacburo intii aan u guda garinin gabayga aad waliba xaaska ku amaantay iyo laba aad gabdhaha kor ku uleysay okay jacburkan doonaya jacburka waxa jirta horta bari imaka waa iska daayay bari aan magacayga ka xanaaqi jiray Shucayb Yare yaraanta ku dhigtay maya ima dhiban yaraanta marka de yaraanta caadi iska tahay Shucayb Yare laakiin marka waxa jirta de bariga gabdhaha de jirayo ilan baa ku imaanaysa Shucayb Yare la moogta aad baatay nin caana baa khatar baad sarka waad yartan baa kula naga tag marka dan yarnay maxaa deen marka magaca codad baan de mar Shucayb Yare balaad inaan dhalo qurux badan oo de waxa ku tiri khatar baad la yartaa yaraanta ilkaan leeyahay nin weyn baan iska dhigayaa moogta waxa leeyahay marka waxaan inay yahay nin weyn baan oo waanad garanay 70kii baa dhashay 10 hortiis qarka waxaan u xeeraa hablo yaani ka baqan adiguna mid gaaban ee soo kacdaa tahay madaxaad sandaqad moodaysa iyo moofa dhoobaa ee wajigaad girgira moodaysa qiiq ka soo kacay si fitar gacal baasita iyo sheeka saydaha samteeshada waxaan doonayaa inaad isiisaayo ninku jecel hadaad aragto wala la ciyaaray inahay diidin caashaqan heeray xogay naftaadii yaabaan kowde markaas ayna titirdeed nin weyn baatay badee hoos baxbaatay suugun baatay meer baa ku leeyahay markaas aan hadana leeyahay waxba maan weyneynay waa yara macaanayna gadna marihi ee waa tibiya xad carruur ee 2000 baan hadal bartay dawladii hore ma garanaysa deeba marka kabrada kaasa ka xasuustaa sidoo kale wax jirtay mid kale isagana jacayladda beenta marka la sheegay teacher dharinteena aragtiin kala mooyaan qof kasta waa dhaawacay mid kasto mid kaliya bal qaba ma jiro balan baa layga baxay wali xumeeyay qof kasta xitaa midaan waligiin yaa liiba helo oran waa dhaawacay marka ana balse aan marka dadka ugu dhex galo oo ugu biiro baa waxa jirtay inaan qasa jacayl leeyahay qasada jacaylka inaan hindiyada oo aktarada oo karina ka burnayda baanu saragnay waa kulantay si allo suuq ka dhiganaysa sigadiisa waliba inta de waan jeclaaday wala hadlay marka halo salaamu calaykum hay wax walba afkastoona qaanida oo kula hadlay hal kelmad baa afkeeda inaad ka soo baxdo nahiyo bay u tiraa nahida waxaan u qaatay marka lambarkii qoratay moogtay maxaa ku xigay sheeg
show inanta waa inantii dhammeed aktarada ahayd oo gaar baa la socdo bodyguard la socdo aktarra waaweyn Salman Khan iyo Hrithik Roshan iyo wixii oo dhan baa ilaalinay ilaa gacmo dheeri weynaaba daba socdo naagta naag loo dhawaan karaa ma hay waa qof qaali ah Salman Khan baa soo galay ayar buurati gacanta qabtay waan xanaaqay maroo dhulkayga joogo ciidii joogo naagiga qaadayaba ninkii waa feer qofta hindidii kale oo dhan bay suuqay markaasaan tix yar oo jacbura ka tigi waxay oranaysaa waa kadeeda duufiya kalgacaylka beentii may saareen koori mayla galay kariiniya hindi koodhay waaweyn aniguna kalkaygii kaartooyinkaygii yartamo yar kala dhigay kalgacayl ma haddana kaaga sheekeeyaa waa kariina kalgacayl ma gaaxdee kariinana dhankeedii ma karkariye laabtii kaalay inanta ii yadhay waa kariina hadda hoosta kaaga sheekay waxa tahay kafkayga oo kaa maarmi maayee kollahayga dheeraan midkeeda hoobaas waa Salman Khan kurka sare ka naaxon kajadaba ka dheeraan biinis iyo kalluun iyo kabaabta ku naaxo kaartooyin raacsaday yartii aan kabeeyaan kalgacayl ku beeray ku banaysay awgeed soo muu ka dhisu daba dhigan markaan hele kalaamkaana soo ma kullaan oo ma kol garayn oo kabtan kaale maano markuu ina hortaydana isagoo kalaam celin sawlaad miki bisifeeno kuma gudin shawaara kurbanayo kureeni ma qaade niku kaliya mu hayn kontor reerahooda gacmo dheere waa koofiinda waa laba dhigii kuula ee dhameeyay kaartada iyo show kalaab kale ayaa joogay goob ragii markay jiriyeen raasi u karbaasheen kuus may fayski karinina big soo tiga qaadato kabteedii ka dhaayaga saartay ninkeeda baana badawada qabtay markaad dhaawac dhashay ninka hindi isugu tagtay yaa ka dhaawac waa cino anaa durmanta durmanta jacayl shacab kii kale isoo qabo okay waxa ku soo qaban kaar jacayl waa badana dhacaweeyna dadka waxay ahayd hadii jar wada aragtay wiilish wax jeceliin gabdha cashigiya gabdhuuna wax jeceliin wiilish cashigiya marka waxa dhacday waxay jeceliin in cashada geeyo kan kalena kasna isaga uu geeymiya mise gabdhuhu marka gabdhaha cashada jecel wiilashana geeyma jeceliin miya waxay sideedaba jacayladu waa in waqti la wada qaato ameenkiya marka waxa dhacday qolays fahmiyay markii la wada casheeyay ninku soo doonayay bay wax noqon waayeen intuu hooyanaya bay tahay ma garad marka waa xanaaq oo wuxuu gaariga shidaalkiisa iyo garanaysa yacshadaan dalbanay adduunyo dhan badiga qabtay dhanba daarka oo ii digday ma garanaysa marka wuxuu in haweenku fulidiin inuu nugu karkariyaan korosyada khiyaamada kulli wada dhameeyeen kaftan baanu haystay iyo caawa koori iyo karbaashkii saaray hodantii kabka ahayd cilmi say u karisaada nayikadeedo hay'adi maayee kitaabka quraanka iyo koreeyaan ku dhaarteen kaftan ka waraanimo iyo kulanka sheekadu waa karaama aadmiga koreeyuhu ku beero hadii la iskaraasado kuraasta la kala qoro imika doo ormanay hadeen labadeen wax neero dhex mareen saamika ismeena ku dhameeyay kuraasta kala jibin garanaysa kuraasta la kala qoro aniguna ku faariyo uma dhalan ku leelkay mar hadaan sasara ka miistaan bakaadii kurkaas aan ka dhigay dadkuna laba dabeecadood u leeyahay qof waa qof furfuran noo qof xidhan qofka furfuran haday dagaal noqoto haday wax kala noqoto haday kaftan noqoto haday wax kala dhex galaan laga yaabaa in si yar oo ku qabtaan laakiin qofka xidhan waa kuma taatay wuxuu anigu ku faariyo uma dhalan ku leelkay mar hadaan sasara ka miistaan bakaadii kurkaas aan ka dhigay waa maxay kala gacalkii markan kaala yidhay kaadooye xidhan iyo kaahadii haweenkii konton lay ku faanaad si kabaysa kacna ayaa soo dhaaf kaadibad yar baa taardiisana ka taado kaartooyin baratee waa maxay kariirtan anigoo karaatoon koolkooliyaaban kalsooniya inta baa heli la karaame xisaabba kormeer leh konton ka ama daayay ka dhamaysiyo kabaabtaad cunaysiyo keeg iyo quraaci kaashtoodi soo celi soo raaci kooki iyo karada gaariga hadii kala kabaysa yaa keer markay wada ciyaarayaan hadda wax isku qabsadaan bayrahan kala hayb la hadii kala kabaan kala bixiyo ajaayib intaas waa shacab iyo shactira iyo adduunyo iyo dhalinyaro iyo waldhanka jacaylka gabay asaga ahaa inaan ka hor dhacmo doonayay murmada gabayga waxa la dhahaa ugu talagalay waa murmada si ku bilaanayna niba xarafka maansada kuwa maan xulkiisa arar lagu xabeegtiyo wixii taagta xaniin hadbadii xiskiisa ku xayndaaban laabtay anayna Xuseenow maansada xaalayda hawo oorideedii hanku xabad barsheedii xilahayga noqotaan wuxuu u dooran u hideeyay xaaween
adigaa xarfaha iyo xuskana higaada adigoon xuseenow marna iyo xil qarinayn xaraf raaca maansada habdhaceeda xarakada xidhiidhada humaagyada xubintiyo sal raacyada ifitubi xuseenow hadday xanaf yar yeeshaan afartaa xujiyo adkeeye dooridayda xaawaay hanku xabagbarsheedii xasan daahir sheegaay xidigtaa dagaalee lagu xeershay nuurkaay xays iyo xir hooriyo xilo lagu nagaadaay xeerbeegti dhaqanka iyo hiddaheena xigataay goobtii xididku sheegay xulkii awdal noqotaay maanaha xuskaagiyo asturnida xijaabkiyo haybadii iyo xishoodkiyo xurmadaad u dhalatiyo xusi karaa maantaha maanaha xuskaagiyo xaragada la yaabiyo cududahan xanaaniyo xina lagu asteeya indhaha xiise eegaa ragacayl la xoodmaa dooridayda xaawaan oralcayn yar baatee xakiim raalli kaa noqday hadalkaagu xaraf male ma taqaanid xigashada ereyada xajiinta leh xalaal meerad baato ma taqaanid xamashada badidood baxaawalay lagu wada xujeeye dooridayda xaawaan oralcayn yar baatee xakiim raalli kaa noqday xakiim raalli kaa noqday maasha allah cajiib shacaybow waxaan ogahay inaadan horta heesihiina aad lugaha kula jirtid oo bal kuwa aad bedesho xataa waan dhegaysanaya hayo ana horta waan ku qabsanayaa fanaaniintu man heesahooda ku qabsanaya laakiin hadda for example waxaan kusoo qaban karayaa niyadan inta fiir ajaib codkana waan dee wala iska sii hagaajinaya hay cusbaan ku siinahay nin xiimiyo ninkan qabanin xuranka nin xiiqiyo nin xeel dhigay aan xoog xariifiyo midkii laxaa xisaab kama dhammaatee ninba xalay halkuu maray xisaabtay ku taala annaxiinu shaaxadig xubbi lacag la'aan la xayraamayaye ambaa kudu maaxiiqeen haddaan xoola leeye maxaa xalaa xagaagan xiisaa xabiibiye maxaabilo dhaxamaha ninkan xabad la saarine lafta midho xabuubiyo xabxaba ubogde lafta midho xalaaliya xabxaba inta foga salaamana heestaas cajiibka waxaad ka sheekaysaa weliba aad taf ku tahay gabayadii ay tiriyeen raggii hore bal waxaad wax nooga xustaa hibro walanwal iyo cambaro wixii dhex maray aad uga hele markaad ka sheekayso anigu dee taa ma duuba laakiin markaa dadka joogna gaarkaan baan gaar uga sheekeeya laakiin dee taariikhda Abu Yuusuf Shacir iyadoo dhammaystiran buu ka sheekay laakiin waxyaabaha aan ka xasuusto waxyaabihii kula yaabka badnaa ka horta kugu adkaa waxyaabaha aan ka xasuusto waxaa ka mid oo kale baydadka noqday baydadka dadka dhex galay aadka u caan baxay marka cambara leeday oo kale inay yihiin dunbaa tahay nagalo lagama odhan karo hadal gobi ku haasoodo la gartanana maa la odhan marka goorashi la gelay dheliyey buushi marka wallahi taas waa cajiib bay ahayd sugaanta hore dee shacburtaasaan aad ugu jeclaayo ujeedaan leedin jira allaha gabaygayga toostoosan baan ku farraqayaa maskax fiican ruuxaan la inuu degderaya adoo beri kasoo eegi galbeed kaaga soo degiy miyaan ku dhameeyaa naxwada mise ber baa dooni maogtay naxwada mise ber baa dooni adraawi laftarkiisa shacburkiisa isa suran dee waa fara badan yihin qisooyinku waa badaa waa tahay heesihii hore ee soomaalida iyo heesahan hadda la qaado dhalinyarada jiilka cusub kuwaba dhegeysataa niyow horta hadday noqoto kuwadaa dhegeysataa dee anugu kuwan la joogeen xilligaygaada dhegeystaa bcause wax walba jiil walba dee wuxuu wataa xaabadiisa marka dee fanaaniintii hore ee waaweynada qaraamiga ahayd dadkii iga waaweynaya weeyaashii iyo deeyo kuwaas isku xilaaya kuwaasa isku xilaaya anigu waxaan dhegeystaa fanaaniinta damaan dhegeystaa sababtaan u dhegeystaana waa xilligaygii baan joogay ya markaa dee hadda qaraamiga kaman kan jecel suugaantan dambe dhalinyarta fanaaniinta dambe qaada fanaaniintan yaryara weli jiilkaaga ah ka
kee oo macnaha ula age-ka xataa kulaalada markay muuqdaan keebad ku jecel anigu ugu wada yaray ugu waaweyn odmare wallahi hadday noqoto taageero laakiin raabka la yiraahdo ninkaan ku bartay baan ugu taageeraa Charmy Boy ha oo aad salaamay dhanka raabka markay noqoto ninka fanaaniinta yarada heesaha caadiga markay noqoto ama calaalka ama garanaysaa fanaaniin badan oo aanan mid iyo laba iskeen hablaha hadday noqoto waa adigu gebi ahaan isuukay wada duubo fankan dambe aadi maasha Allah ma jirtaa heesa adigu aad leedahay la qaado maya waxaasan anigu leeyahay oo la qaaday ma jirto sanado badan dharkeygana badan sheekh oo dee kuley shanteeda wax ku wajibada laakiinse waxaanan aada isugu sii wanaagsan qolyaha fankanan aada isu sii dhexgelin socod baa gooni socod ya aad waxaad ka heystay jacayl qosol jacbur wadaniyadan ka heystay weliga ka tirsa ka gabayda wadaniyada may wadaniyad weli wax sugaana kama samaynin laakiin way qorshaysanta waxaan leeyahay xilligeedii gaadid wadaniyada afrikanshadun baa lagaga maqlaysaa oo way aragnimo badan bay u baahantay cilmi baaris fara badan markaa way soo socotaa taas way dambaysaa jilaa iyo weliba abwaan nin la yiraayo social oo active ah oo inta jira ka weyn maasha Allah ilaahay cindiga ku barakeeyo qorshahaaga mustaqbalkaaga maxaa isleeyahay inaad harjeyso laa qaybta ilaahay hundaa kowda laakiin plan qorshaha hadda qorshuhu dee waa fara badan yahay kowda inaan deehiyad inantaa karin hore way qorshaha khadbare waan liidaryi tago garatay marka hadda waxaan sii diyaarsanayaa niman Soomaaliyeed oo xoog waaweyn oo ragayga dhigay geed wada ka bixin lahayd waana ogeysaa geed ina dhaqan karo la yaaba waa inay facaan asxaabtaada taageerayaashaada familigaaga ku daawada oo aad kugu qosla ku jecel kelmadda uga tagaysan maxay noqontaa maadaama dinteeda go'ay barnaamijka aan gaarin aad baan mahadsan tahay aad baan faraxsanahay inaan kala soo qayb galay barnaamijka badan meelaha ka daawan jiray aad baan kursiga martida anigu maanta fadhiyo asxaabta taageerayaasha ehelka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta daafaca caalamka ku joogaan waxaan leeyahay waxaan ugu hambalyeynaa waqtiga aad ilaahay soo kan gaarsiiyay waqtiga waa hambalyo ma dhinteen inta noo cimrigaan idin ku hambalyo aad waa tahay daawadayaal waxaan soo gaaray guntiga gabagabada barnaamijka waxaan mar raba ilaawi doono mahadsanid kaliya aysan ku filnayn walaalka Shacayb Yare oo waliba maanta intaan si safar degdeg ah oo ku baxay aan ka hor istaagay ayri inaad ilo wareysiga isla sameeyay iga ogolaado Shacayb Yare aad mahadsan tahay runtii hadduu jiro qof taageera oo faan ah ana adiga faan ilaahay ku day aad baad mahadsan tahay kaga mahad celinaya sida quruxda badan ee barnaamijka qayb qaatay mar walba iyo maaragtay waxaan kaloo u mahad celinayaa asxaabta quruxda badan oo aan magacyadooda halkan kusoo koobi karin kaamiradan quruxda badan iyaguna iga duubay oo i suurageliyey iyo cid walba oo barnaamijka igala shaqeysay waxaan leeyahay nabadgelyo inta ku kulmay barnaamijka lamida Soomaaliya nabad